بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Ismaaciil Muuse halkaad iga daawanaysaan waa bartaan ku leeyahay mareegta YouTube-ka Ismaaciil Said fadlan dad ku cusub tahay ku soo dhawow channel-ka subscribe iyo like iskugu gee rukna ka dhigo si uu kugu noqdo raas waa mar kale iyo barnaamijkeeni ahaa maxaa qaldan maxaa isbedelay oo aan ku soo qaadanay su'aalo aad u fara badan barnaamijkan kuwii ka horreeyay su'aalahaas aan ugu talagalay inaan idinka dhex dhigo kadibna anigu sidaan ka aaminsanahay iyo idinku sidaan ka aaminsantihiin wax iga soo noqda su'aalaha jawaabihiina intaan isku geeyo dabeeta sida ay sartu tahay iyo halka sartu ka quluntayba aynu abaarno inagoo wada jirna aynu wada falaqayno aynu sidaynu aragno inay wax ku toosi karaan aynu toosino barnaamijkeenan maantana waxaynu ku soo qaadan doonaa hadduu ilaahay idinkeeda leeyahay oo sidii caadadeena isugu su'aalo qura ah oo gorfaynta xagga dambe ay noo tahay akhlaaqda iyo tarbiyadda ubadka ama caruurteena ilaahay ina siiyey ee hibada ah markaanu eegno akhlaaqda ubadkeenu intooda badan maasha Allah weeyaan laakiin qaar ka mid ah waxaad moodaa waalidkii iyo ubadkii inay isfahmi la'yihiin aabihii iyo inankiisu is cayrsanayo hooyadii iyo inantii ama cunugteedii yarayd oo isfahmi la qalad weyn aad muddo ka dhex taagan yahay maxaa sababay marka duu eegno dhaqanadeennii hore sidan oo kale ma ahaan jirin sanadba sanad ka sii dambeeya waa ka sii dambeeya maalin maad ku xigtaa waxba isbedelaya maxaa sababay waad malaynaysaa sida idinla muuqataa maxaa keenay in tarbiyadii caruurta aynu ku filaan weyno maanta oo ubadkeeni markuu maanta waxooga yara xoogaysto ama waxooga qof yara noqdo inta hore leeg oo hooyadii iyo waalidkiisii indhaha u basbaaseeyo macalinkiisii afka ka candhuufayo bay-adii iyo dadku la noolaa mid yar iyo mid weynba oo ixtiraami karaama u keeni waayo bal innaga oo wada gorfayn doona wadada cad iyo jidka aynu isugu maadna xaqa ahe iskugu keen kana dhammaantiinbo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu